السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاو waxaan rabnaa inaan ka hadalno xaqiijinta amniga golaha shacabka ama amniga xarunta baarlamaanka iyo xildhibaanada. Bismillah. waxaad nalalkiyaad indhaha iga qabateen kooxo lama akhrin karo iyadoo la tixraacayo qodobada amniga qaranka waxaa la ogeysiinayaa dhammaan xildhibaanada iyo shacabka Soomaaliyeed in berri la qaban doono shirka golaha shacabka sida uu na soo gaarsiiyay golahu. sida awgeed waxaan ku wargelinaynaa ama ka codsanaynaa xildhibaanada sharafta leh in aan lala soo geli karin qori ama hub in laga soo galo meelaha loogu talagalay ama irdaha loogu talagalay oo xildhibaanadu ay ka soo galaan in istaafyada la dhigo meelaha loogu talagalay ee ciidanka amnigu ay ugu talagaleen. lambar 3 waxaan xildhibaanada sharafta leh ka codsanaynaa in nala ku caawiyo amniga sidii uu amni u jiri lahaa. xildhibaanada sharafta leh waxaan kaloo ka codsanaynaa inaan lala soo gelin wax qof bini'aadmiya waxyaala hubka tooreeyada ulaha iyo wixii la mid ah. ciidanka booliiska Soomaaliyeed sida amarka uu nagu siiyay taliyaha ciidanka booliisku waxaa la adkeeyay oo aad loo adkeynayaa amniga ayadoo uusan cidnana ku foorin cidnana ku lid ahayn cidnana aan gooni loo beegsanayn ama cidnana aan maaragtaa la lahayn kaasaasa iyo kaasaasa qof walba waxaan ka codsanaynaa xildhibaanada sharafta leh in ay ciidanka booliiska ama ciidamada amniga ay ku gacan siiyaan amniga. hubku waa mamnuuc istaafyadu waa mamnuuc istaafyada meel gooniya loo qoondeeyay xildhibaan kasta si aan gacan loola gelinayo intaba waxaan ka codsanaynaa xildhibaanku inuu hubiyo oo uu asagu isjeegareeyo kuna cadeeyana in aanu wax huba iyo wax qof bini'aadmiya waxyeela midna uusan wadan. aad baa u mahadsantihiin shaqo wanaagsan.